kulanti waxaan wanaagsan qaarteena daawanaysa dhammaantiinba meel kasta oo aad ku sugan tihiin magacayga waa cabdinaasir nuur socdaal waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo sugaanta oo aad xilligan oo kaleeto toddobaadkiiba mar unaad ka daawataan shaashada astaan t v dabcan markii ugu dambeysay ayaan filayaa inta markaasi laga soo laabanayo bisha barakeysan ee Ramadaan oo markaa barnaamijka uu baxayo barnaamijka fanka sugaanta ayaynu ugu talagalnay inaynu ku casuuno isla markaana aynu ku horumarino fanka Soomaaliyeed iyo waliba fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa markaasi caanka ah iyo kuwa kale ee iyagu markaas soo baxaya toddobaadkan waxaa ka qayb galaya barnaamijka fanka iyo sugaanta gabadha markaasi steel kale ee loo yaqaano Kaafiya Mustafa Xuseen oo ku magac dheer Kaafiya markaasi xurmo studio ay fadhisaa waana ku soo dhawaanaya Kaafiya soo وأنا هولال صعدان وأنا كفرح سنة هنا كقريب قلب برنامجكن تطبع لها فنكي سجنت. وي هي طبعا حفلة مركي يقول شيء صحافة صوف ليس ليش نتاع. وأنت بدن فننت إنه هل كان كويس إنه وحين ودينا إسكا أنت بدن السؤال مركزي أنا سيدا وقت كين ومركا كوسا بسان فنك الصومالية يفننت الصومالية. وحنا أقول هو سؤال أنت بدن كوسا العلم إنه قنيسة بل waxyaabaha inta badan qofka ku dhiirigelinaya ama sabab u noqonaya inuu markaa fanaan noqdo bal adiga maxay tahay dareenkaaga kasbay ama dhaliyanaad fanaanad markaasi aad noqoto horta ilaa yaraantaydii fanku waxa ahaa wax igu jira waan ku haminay jiray anoo iskuulka hoose dhiganaya kii sare mar walba waxaan ku haminay jiray inaan mar uun ama saxafiyad noqdo ama aan heesaa noqdo imikana labadii midna kama fogaano heesaa un baan noqday tan saxaafadda maxay markaasi ka dhigan tahay mar haddii fanki aad u weecatay ilaa iminka hamigaagii ma laga yaabo inaad ku laabato one day ha insha Allah way Kaafi aad baad u maasan tahay inta badan marka aad fiiriso fanaaniinta Soomaaliyeed iyagu markaasi xilligan soo baxay aad u fara badan yihiin taa ma la oran karayaa in fanku uu noqdo mid sahal ah marka lagu soo galayo oo qof walba uu iska noqon karayo fanaan maya fanaan sida lagu noqdaa way adagtay laakiin si microphone loo qaato way fududahay xaqiiqatan waayo waxaas dad aad arkayso maba talentii uma wada laha fan cod ha noqdo tembadi iyo wixii ha noqdo laakiin inta fanaan lagu tirin karaa way iska yartaa aad u maastay maxaa karaysaa heestii ugu horeysay aad qaado ama meel fagaara ah bulsho markaasi aad ka dhaxaysto طبعا حياتي برتادي قتالي بركلتين ميت فوكسين هتاتا هاي أحذي قنا بركولي هاي وايحي فرانكا مركزي أما فرنتاسي سعادة ولا ببرد العشاء طبعا وهي سود وحي كم إذا يسا أنت بدن ضدك أياد حسوستان شخصية أهم أديك abwaankii markaasi ku dhiirigeliyay ama dadkii fanka kugu soo qabtay ama fanaanad in la noqoto ka dambeeyay hal ilaa iminka ayaad ka sheegi karaysaa abwaan cabdiyara caaqilka aan aad iyo aad halkan uga salaamayo waxa qofkii ugu horeeyay ee idhaha fanaan baad wad heesi kartaa igeeyay go musician heestii ugu horeysay ee tumay waayay dabcan inta badan marka heesaha la qaadayo laxanka la saarayo waxa lagu saaraa kaban adiga bal markii ugu horeysay meel lagu geeyay laxankaaga la tumay heestaadii miyad u filaysay in qaabka laxanka loo saaray kabanka noqonaysa inay ku soo baxaysay mise waxaad filaysay in music la saarayo maya waxaan u filayay inay kabanka ku soo baxayso waayo imaka aaladan muusigo 100% waxa xataa ka fudud ayadoo fiicnaa shabel gaadhi xataa waxa ka fudud kabanka laakiin dadkii ma fahansano way aad baad u maasan tahay sheekadaadii dib ayaan ugu soo laabanaya heesta ugu horeyso dadka inaan markaasi aynu isku barno ama adiga dabcan aan kugu barno maxay noqonaysaa hees qalbi ooman leedahay haya maxay macna markaasi ka dhigan tahay qalbi ooman heestan qalbi ooman kulay aniga wax qisadeeda igu saabsan tahay maaha erayada waxaa le abwaan cabdirashiid muuse kudcur waan salaamayo fan ama abwaan markaasi aad u soomaaliyeed soo kale laxanka waxaa le daa'ud xanfar istaad weyn muusiga subxaan yaa leh way codkan waa adiga waayahay daawadayaal waxaan idinku soo dhaweeyahay heestaasi markaasi la yiraahdo qalbi ooman iyo fanaanada da'da yar Kaafiya xurmo daawasho wanaagsan
caashaq baa ku imaynayo ku ilaashadee qalbi oomaniyo indha caashaq baa ku imaynayo ku ilaashadee wanku aamino kuurnug lahay ayldufino hayarsanine axdigan lahayn maadkaysan yahay wanku aamino kuurnug lahay ayldufino hayarsanine axdigan lahayn maadkaysan yahay umilkii oo dhibtiyo aramida jacayl adabeehaye abalidhigo yarimi macaan umilkii oo dhibtiyo aramida jacayl adabeehaye abalidhigo yarimi macaan qalbidegaho kuwa ololaya muxabaydina ixsaanka rabeen qalbidegaho kuwa ololaya muxabaydina ixsaanka rabeen erayada jacayl qofkan ku tirshay ku ammaanaya ayaan aamusine waa insaanime goormaad arxamin erayada jacayl qofkan ku tirshay ku ammaanaya ayaan aamusine waa insaanime goormaad arxamin umilkii oo dhibtiyo aramida jacayl adabeehaye abalidhigo yarimi macaan umilkii oo dhibtiyo aramida jacayl adabeehaye abalidhigo yarimi macaan caashaq baa ku ilmeynayo weliba ku ilaashanaya ayay halkaasi markaasi sii gaarsiisay fanaanada markaasi kaafi xurma xoogaa dareen jacaylna way inagu beerta ayaan filayaa bulshadayna daawanaya meel kastoo aad joogtaan nabad bashbash iyo barwaaqo ayaan dhammaantiinba hawada idinka leeyahay barnaamijka fanka iyo sugaanta ayaan ku guda jirnaa weliba qaybihii hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa kaafi waan kugu soo laabanaya
miyaad filaysaa hadda fanka Soomaaliya ama fanaaniinta Soomaaliyeed qaabka isku dhaxgalayaan maadaama kaafiyo reer Hargeysa aad tahay Muqdisho iminka aad joogto inay keeni karayso in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay isku soo dhawaanayaan طبعا waayo annagu haddaan fanaaniin nahay waxaan nahay muraayadii dadka kolley annaka sidiina laga arkun baa lagu dhaqmaayaan way dhici kartaa waayahay inta badan fanaaniinta halkan ii timaado ama aynu wareysano waxaynu weydiinaa su'aalo kaftanahay diyaar muu noqonaysaa in su'aal ku weydiiyo waayo su'aal baa inoo jirtay oo tiilay oo ahayd hooyada iyo aabaha intay ku dhalan ka hor maxay ku ahaayeen dabcan waa laga jawaabay haddii aan ku iraado su'aasha labaad toddobaadkan barnaamijka markaa u yaalo waxay noqonaysaa sida ayuu qofku ku ogaan karayaa inuu jecel hayo sidee ku ogaanaya inaad ranag miyaan garanana mala cuntada laga go'aya walkii boodariye aad baad u mahadsan tahay su'aasha dib u dhiganaa mise waa isku dayaysaa maya toddobaadka dambe loo dhigataa aad baad u mahadsan tahay fanaaniinta dambe ayaan fursad siin doonaa dhanka kaleeto waxaana soo qaadanaa iyaduna markaasi aynu xurmaynaa fanaaniinteena Soomaaliyeed ee markaasi hobalada waabri iyo dhammaan fanka dadka markaasi magaca ku leh haddii aan ku iraado fankii hore fanaaniintoodii qaar ka mid ah heesoodii haddii aad taqaano noo qaad yaad inoo qaadi lahayd dabcan waxaan inoo qaadi lahaa aan aadna u jecelahay khatar daahir iyo saad cali labada hay midkood bal heesaha ay leeyihiin mid ka mid ah codkaaga ma nagu siin kartaa mahiga jacayl baan dhex maqurayayo miraalihiisii midigta igu qadiyo mujadba isidaate naftu kayo muatana iga maqanaaye ma maqanahay ma jooga ma mirkacay ma nagayahay aad baad u mahadsan tahay dabcan halkeedii baa dhigtay inkastoo aanan dadkii hore waaya aan soo laabano barnaamijkani ee fankii sugaanta kaafiyo dabcan fanaanad baa tahay weliba da'yar oo soo baxay iminka caasimadda Soomaaliya Muqdisho joogta bal dumarka fanaaniinta ahi qaab caankee ah ayay iyagu ku abuuri karayaan shaqooyin kale marka laga soo tago fanka ma jirtaa yani shaqooyin kale qabtaan gabdhaha fanaaniinta Soomaaliyeed dabcan way jiraan fanaaniin isku horta fanka iyo shaqada hala kala saaro fanku waa wax hobby ah laakiin ma aha shaqo haddaan maanta dhaho fan baan ku shaqaysanaya meelka ma gaadhayo laakiin haddii fan iyo shaqo la isku dhex wado inkastoo annagu aan dumar nahayba oo dee gurigiina la dhigto uun aanu shaqadiisuna sugayso haddana fan ma noqon karo waa wax qofka hobby u ah ma aha wax shaqo ah way kaafiyo runtii isbedelo badan baa wadankeena ka dhacay waxaadna moodaa in sheeg fanka Soomaaliya in hadba dhinac walba markaasi uu horumar u ka sameynayo qaarkoodna dib u dhac marka qaarkood ay dhacayaan haddii la yiraahdo heesaha Soomaalida ama fanka meesha ka qaldan ka sax halkee ka qaban lahayd waxaan ka qaban lahaa fanka cadadkan taraha badan ee horta soo galaya in la yareeyo waayo waxaa ku filan imanka marka Soomaaliya kale loo eego 20 fanaan ama 15 fanaan oo magac iyo muunad dadkiina u yeelaya ayagiina leh laakiin marka meel walba mee aad stage wala tagto lagu oranay kan waa fanaan mushkilad saasa talahan bilaad way heesta labaad ana soo xulay dabcan xaqiiqo ka soo way heesaha runtii dadka reer Muqdisho aad bay ku xiisanayaan maadaama markaasi Muqdisho muddo markaa aad joogto igada kurbada ayaan maqlay heestaasi oo YouTube kan ka daawanayay ma ida masri karaysaa ereyada ku jiray dabcan hay maxay ahayd عاشقا كنجري ترى كبدن انت انك بدي انت انك بدي بس marka qisadeeda ayaa ku sameeyay sidee ku timid hay ان هستن eriyada waxa le adeer caaqilka an aadi adalka naga salaamayo laxankana sidoo kale Yusuf Xaybro waxa weeyaan ustaadka ii bixiyay xurmo ما شاء الله
muusikana isla subxaaya waayo dee hadal badan ma filayo inaan markaa aan kusii darayo heestaasi waxaan rajaynayaa codka wanaagsan kaafiya inaad ku raaxaysanaysaan igadaa kurbada daawasho wanaagsan نفتكو عالماضي توخيو كالقاع لوقتكو بحرهي لوقتكو بحرهي نفتكو عالماضي توخيو كالقاع لدونتكو بحرهي لوقتكو بحرهي
kufkeed kama reebino kadad maanad badin kadeed soo aduu kufkeed kama reebino kadad maanad badin kadeed qofba waa kalkii iyo wuxuu kasbaday wactaabi jiray iyo wuxuu kasbaday wactaabi jiray qofba waa kalkii iyo wuxuu kasbaday wactaabi jiray iyo wuxuu kasbaday wactaabi jiray mar hadduu ku helay oo keenadii oo kugu xidhay hoggaan hay keenino haygulaa ku finay keligaa wado igadaa kurbada hay keenino haygulaa ku finay keligaa wado nagadaa kurbada mar hadduu ku helay oo keenadii oo kugu xidhay hoggaan hay keenino haygulaa ku finay keligaa wado igadaa kurbada hay keenino haygulaa ku finay keligaa wado nagadaa kurbada waa hagaag daawadayaal waxaan filayaa in markaasi ay gabadhun iyo weliba gabdhaha Soomaaliyeed ay leeyihiin naga daayo kurbada warago gabdhaha dhibaatada laga daayo inta markaasi istaqaano weeyaan dumarka dhibaatada u geysa Soomaa هذا وحي كربوده naga daayo way aad baad u maasantahay dabcan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan rabaa kaafi inaan ku weydiiyo ma hadda intee bad ku qiyaasaysaa haddii aan ku iraado dadka ku yaqaan ama ku taageero ee fankaaga jecel waxay gaarayaan tira intee leg bay gaarayaan markaad qiyaasto ما شاء الله كل أنا اسمي إيماج كرين كرو لكن waxaan soo arkaa maanta qof bulsho badan صح garanayso waayo hadiiba aad barihii bulshada gashay marka intii ku qiyaasay boqolkiiba meeqa ku qiyaas kartaa 60 baan dhihi karnaa maanta aad baad u maasan tahay fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagu marka inta ay yimaadaan waxyaabaha inta badan aan ama ka sheekeysano ama in dhaxmar waxa kamid ah nolosha caadiga markaasi ay ku noolaadaan markaad fiiriso magaalada markaas soo aado kaleeto iyo saameynta bulshada markaasi aad kala kulanto waxyaabaha aad ka xasuusto ma jira oo xiiso leh wallahi horta markii hore aan cusbaa ma ahani oo aan cuntada saan u dalbanayaan ibisku qabnay laakiin hadda oo maxaa oran jirtay markaa markaan dhaho walaalo maxaa yaalo cabitaan lagu dhahay isfarmuuta taalo hebelowba anigu horta taas dhib baan isku qabi jirnay maalin sidii ama aan soo cocktail baan rabay inaan dalbado soo afaan ugu sheegay waan garawaa walaal cocktail baan rabaa cocktail garanayno mar dhawaytaaba halkan keenteenaan arkaya taaganaanin hadda cocktailkaas qaar baa laga yaabaa dadka inaysan garan maxaa loola jeedaa halkan furlaata la dhahaa idinkuna maxaa tirahdaan annaguna mushakal iyo cocktail baan dhahnaa waayahay waad barateen filayaa ay maxaa kaloo noo faa'iideynaysaa waxyaabo badan sida talmuuskii oo laba loo kala garanaya halkan annaga talmuus dhan ma naqaano halkana falaastiin talmuus baa la dhahayaa qaboojiye biyana talmuus baa la dhahayaa waana xagga talaajad aan dhahnaa idinka maxaa tirahdaan annaguna talaajad baan midna dhahanaa midna falaas baan dhahanaa kii shaahna waa falaas kii kalena waa talaajad sidaas kala duwan ha halkana labadaba talmuus baa lagu wada diray waayahay kaafiya nasiib waxaad u yeelatay inaad noqoto gabadhii markaa fanaanada ahay ee ugu dambeysay inoo soo afjaraysa dabcan barnaamijka fanka iyo suugaanta ee toddobaadkan iyadoo markaa la gali doono bishii barakeysneed ee Ramadaan maxaa markaasi dadka Soomaaliyeed ee ku daawanayo ee caasimada jooga iyo kuwa kale caalamka ee naga daawanayo ee baraha bulshada iyo meelaha kale naga daawanayo maxaad fariinahay oo aad isleedahay bal gaarsii oo aad inoo isdaa والله الحمد لله horta nasiib waxaan u yeelanay in bishii barakeysnayd ee soon 2 toddobaad wax ka yar inooga harsan yihiin
soo si kalena waxaan ugu sii faraxsanay inaan qofkii ugu dambeeyay noqdo ee barnaamijka lagu soo khatimayay waxaan gudbin lahaa kulley dhalinyaraha u badnaadaane waqtigii baa shaalka waynu soo dhammaynay bishaa Ramadaan insha Allah aan ka faa'iideysano waayahay dhanka kaleeto dabcan waxaa laga yaabaa dee qoyskaagii asxaabtaadii inay Soomaaliland badan yihiin haddaan jaanis ku sii ku iraado intii aad garanayso boqol haddii noqdo xataa waa salaami kartaa ma ka faa'iideysanay dabcan waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa 3 jeer xaq mudan hooyadii macaan Nimco Yuusuf Ismaaciil soo kale waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa walaashayda dhalatay Warsan abahay labaad Xaaji Cabdilaahi sidoo kale dhammaan asxaabta oo ku sugan Somaliland amaba halkan aan dhaho intaan magacooda aan soo koobi karin ugu horeyso walaashay Sumaya oo hadda ila socotaba ana saaxiibtay ah soo kale Xaawo socdaalo aan aad ugu faraxsanahay inaan hortiisa maanta fadhiyo Shadiye Sharaf marna fanaanadeyda marna walaashaya soo kale waxaan aad iyo aad halkan aan marna iloobeen aan uga salaamayaa Cabdiyar Caaqilka aan mar walba dhaho my one and only legend weeyaan aan kaga faani karo xagga fanka waayahay intii ay ilowdan waxaan leeyahay raali ahaada waxa waa hilmaani hadal kuma jira qofka bini'aadanka hayna maskaxdiisa waxa weeyaan markaan oo kale way maqlaan kartaa waayahay haddii aan ku iraado heesta ugu dambaysa ee barnaamijka kaliya ayaa ciyaarayo halkan istaagayo ma ku qanacsan tahay bal socdaal la eegin waayahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka magaceeda maxay noqonaysaa hubsiimo dacal maraa فذكرت نقضنا كان دب سوء عشاء waxa way filaya xogaa daadiskii ayaa xogaa laga soo laabanaya kaliya ayaa rabaa in halka ku ciyaarto aan aniga halka isaga baxo inta barnaamijka soo xirin waan kaaga mahadcelinayaa kun jeer iyo in ka badan waqtiga qaaliha aad nasiisay waana ku faraxsanahay insha Allah waxaan ku rajaynayaa fankaagu inuu sii hormaro waxaan ku rajaynayaa mustaqbalkaagu inuu wanaagsanaado waxaan kale ku rajaynayaa inaad insha Allah nin baari mustaqbalka Ilaahay markaas uu ku siiyaamin waayahay daawadan inta ayaan doonayaa inaan ku soo afjaro barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aad ka daawanayseen telefishinka Astaan TV waxaa markaasi barnaamijka toddobaadkan ka qayb galaysay isla markaana heesta ugu dambaysa ay noo soo xili doonto fanaanada markaasi quruxda iyo istaalka isku wadata ee Muqdisho iminka la joogta Kaafiya Mustafa Xuseen oo markaa ku magac dheer Xurmo anigoo Cabdinaasir Socdaal ayaa waxaan idinku dhaafiyaa sida iyo dalka oo nabad ahay diyo dookhay wada ayaan horseedaya ayaan horseedaya albaan halku raadiya rajaan u qaadaya diyo dookhay wada ayaan horseedaya ayaan horseedaya maagi muuqdabay indhuhu himbiriirsadaan hubsiiman dacal maraa فذكرت نقضنا عن كان دب سوء عشاء فذكرت نقضنا عن كان دب سوء عشاء
هبصدان وبسي من دع المرا أنفذي كورتا نغضنا كان دي بسوعشان أنفذي كورتا نغضنا كان دي بسوعشان طاقدكي بضي موقع هوشان مري طاقدكي بضي مبقى هوشوي بضي وهي أنا كميل بحو إنان هايبشان مخورو نفتاهي لوغا ديغي وقامبو إيغو هيا طاقدكي بضي موقع هوشان مري طاقدكي بضي مبقى هوشوي بضي وهي أنا كميل بحو إنان هايبشان مهورو نفتاهي لوغا ديغي وقامبو إيغو هيا جعيلك وقضي صدرا أيان لهلان هلا أيان لهلان هلا لان هيلك عقديا هرباك لقي سيدا جعيلك وقضي صدرا أيان لهلان هلا أيان لهلان هلا ilowga naftayda waday ayaa hoosii dhigo hayaankii shalay ambaday ayaa weli higsadaa habeenba hog bandega ayaa weli higsadaa habeenba hog bandega ilowga naftayda waday ayaa hoosii dhigo hayaankii shalay ambaday ayaa weli higsadaa habeenba hog bandega ayaa weli higsadaa habeenba hog bandega طاقدكي بضي موقع هوشان مري طاقدكي بضي ما بقى هوشوي بضي وهي أنا كميل بحو إنان هايبشان مهورو نفتاهي لوغا ديغي وقامبو إيغو هيا طاقدكي بضي موقع هوشان مري طاقدكي بضي وبوقع هوشوي بضي وهي أنا كميل بحو إنان هايبشان مهورو تاهي لوغا ديغي وقامبو إيغو هيا